السلام عليكم. wuu u qaadan waayay xataa waan u sheegay inaad isku magac tihiin najax. wallaahi wax nool ayaa tahay hoodoy, wax yarna waan ku cadhooday, iska dulqaado. xafladu waa goorma ay ugu hadal goobtay. hooda ayaa hadalkii qaadatay oo tiri dee waa caawa, si weyna waa laynoo sugayaa weliba, adigaa lagu sugayaa weliba. sahre ayaa tiri maxaad tiri? najax ayaa hadalkii qaadatay oo tiri naa waa goorma caawa ah. hooda ayaa tiri caawa 9:15 habeenimo ayaa tigidhka ku qoran. degdeg ayay uga hadhay, iyada ayaana isu hadhay. dareen qasan ayay qolkeeda la gashay. haanteeda dareenka haddii loo fiirsado gunta hoose farxada ayaa fadhida oo aayar karkaraysa, korkeeda sarena raja ku dahaadhan sidii labeenta. labada dareen, haantii waa ka badh uun dhowr kiilo oo shaki ah, badhkii oo walaac ah, 3 rubuc oo cabsi iyo qadhiidh quus ah. intaasaa ka koraysa xuubka rajada. way ku kalsoon tahay saaxiibadeed hoodo, haddana wax ay rumaysato ayay garan laadahay. hadalkii ay ku lahayd ayay ku soo ceshataa, deedna way qanacdaa. haddana waxay og tahay in ay hoodo cid kasta hadal ku qancin karto. biyuhuna dhanka ay u shubmayaan in ay u raacdo ayay qoondaysatay. warqadda dhan walba laga xardhay ee faraheeda si daabacsan ugu jirtay ayay hoos u eegtay. waa 9:15 habeenimo oo far dahabi ah ku sharaxan. ayay indhaha ku nasisay. xiisaha kororka ah ee ay u qabto madal aan laga aqoon ayay si isleeg. amminta ay sii eegto xarfaha dhowrka meelood ka laabma. tamar saa'id ah ayaa gashay. meel aan laga aqoon marka aad tegayso dhowr waxyaabood ayay ku fiican tahay. mid ka mid ah ayaa ah in haddii labiskaagu liito cidii aanay dan kaa gelayn, in sidii hablihii boqortooyada u labisato. go'aan ayay ku gaadhay. hadhow sidii ay noqotoba adigu waxba hala hadhin ayay ku tashatay. sidii qumac la riday ayay sariirta ay dacal kaga fadhido uga booday. waqti badan ma hadhin, waanay qorshaysay. saacad waxaa iska leh musqusha oo iminka ay sii galayso. 10 daqiiqo wax ka yar dharkii oo diyaar u ah ayay isu suraysaa. 2 saacadoodna waa xaalxaalka dambe ee isrinjeeyinta. tugaal culays badan ayay ula kacday dhanka iyo qolka la isku dhaqo. 60 daqiiqo kadib ayay ka soo baxday iyada oo qof kale u eeg raad qoyan oo ay cagaheeda reebayaan ayay ku hagtay qolkeeda. timo meyd ah oo aan gooraha qalalayn ayay tugaal kale ku maraysaa, iyada oo qoorta dhinac u duwaysa. kor ayay u laabaysaa si ay halkaa uga bilowdo saacadda soo socota. shaqo aanay jirin cid kaga xariibsan ayay caawa si niyadsan u bilowday. dhowr nafaqahoo kala kaan ah ayay midna jidhka ku duugaysaa, midna koraysiinaysaa, midna labeen uga dhigaysaa. sidii farshaxan qalabkiisu u dhan yahay ayay xaadda korkeeda midba gaar u raali gelinaysaa. iyada oo barta ay ka dhaqaaqdo caraf udgoon kaga tegaysa ayay dhankii maryaha u dhaqaaqday. kabadh gidaarka qolka hoos u gashan ayay labadiisa albaab midba mar furtay. sidii uu kaare ka soo baxayo faraheeda hore ay ku aamintay xulidda maryaha ayay hoos u raacisay dharka allaaban. iyaga oo maraba mid uga gudbaya meel ay wax ku ogaayeen ayay ku nagaadeen. amar la siiyey ayay fuliyeen. markii ay si quman u soo jiideen wixii ay hayeen gacmaha iyo indhaha oo wada sida ayaa sariirta cidhifkeeda hoose ee bidix dul fadhiisiyey. ma aha maryo ay weligeed hore u isticmaashay, waa hadiyad ay iyada habeergarteed uga keentay Dubay markii ay qalin jabisay. 5 jeer oo hore oo ay isku eegtay mooyaane weli lamay bixin. iyada oo niyada ku haysa cambara dheer iyo asxaabteedii ay la kulmi doonto ayay si qumaati ah muraayadda u hor fadhiisatay. dhowr burisho oo kala kaan ah ayay qunyar uga salaaxday wejigeeda. fooda hore iyo dhabanada ayay ku noqnoqotay iyada oo aan degdeg ku jirin. muddo ayaa sidaa ahayd, in kalena way sii ahayd. cidiyo aan aad u dhaadheerayn oo bilaa midab ah ayay tii u dambaysay fariirta ku xidhaysay markii ay maqashay hoonka baabuurka bannaanka ka yeedhaya. wax yar kadib dhawaaqa asxaabteeda oo qolkeeda ku soo dhowaanaya ayaa xigay. codka hoodo ayaa soo horreeyey. naameeda yartii way jiiftaa kolley. sahre ayaa qosol ugu markhaati furtay. kolley riyadii saddexaad ayay sii dhammaynaysaa iminka. way soo dhowaadeen. sahre oo afka ku haysa naakaalay qanaayad ayay ku riyoonaysaa ayay albaabka soo riixeen. sankoodii ayaa ka dhaqso badnaa indhahoodii. ur udgoon oo qolka ku dhex huruday ayaa ilaa cidhbaha socotay. xubnahoodana dabcisay oo hadalkii ka jartay. maskaxda oo aan weli fahmin ayay indhuhu sixi waayeen. joogan sidii caadiga ahaa ka dheer. cadal ku jira gacanteeda bidix oo fidsan ayaa meel dheer ka soo tooganayay. markii ay indhahoodu qabteen iyada, hadal ayaa iska waayeen. najax oo saacad dahabi ah dhudhuka ku laabaysa ayaa mar dambe ku tuurtay. ayaa hurdo oo aad sheegayseen. ina mariya ayay u raacisay iyaga oo weli sida asnaamta qalalan. zahre ayaa hadalkii qaadatay oo tiri wallaahi haddaan nin ahay waan kugu boodi lahaa iminka. hoodo ayaa hadalkii qaadatay oo tiri
xuuralcayntu ma sidan ayay u eg tahay talow huuna ma adigiiba. najax ayaa tiri hadalka badan jara. hooda ayaa tiri naadir naagtu way inoo xoog sheeganaysaa inaadeer adiguu ilaahay quruxdaa ku siiye dee hanagu jimicsan. najax ayaa tiri waa imisadii Zahra oo diracani muxuu ahaana wallaahi in aan qaawanahay ayaan isku haysanaa iminka qurux badanaa wuxuu. hooda ayaa tiri alanaa bal dhankaa u jeeso oo kan maan arage waan kaan kaa xadi lahaaye. najax ayaa tiri ma baxnaa. hooda ayaa tiri bal cadarkanuun ii dhiib may ka kale shaneelka. najax oo hogaaminaysa ayay kaabada guriga ka soo dhaadhaceen. baabuur ay indhaheedu garan waayeen nooca uu yahay iyo wadihii oo dhex fadhiya ayay indhaheedu qabteen iyadoo oon hadal ka keenin ayay kursiga qaniintay. qorshe ay xafladda ku geli doonto ayaa asxaabteedu diyaariyeen iyaduna waa mooge. 40 daqiiqo kadib ayay ku soo hagaageen qasrigii magaalada ka baxsan oo nuurkiisa xidigaha u jawaabayo. 3 isbaaro oo kala dambeeya ayay ka gudbeen markii ay magacyadooda oo sii yaala ku dhawaaqeen. qasri mataan la ah kan weyn ee garabkooda bidix ka soo eegaya ayuu waduhu ku hagaajiyey isagoo oo raacaya fallaadhaha iftiimaya ee dhulka wadada labadeeda dhinac lagu dhigay. taalada bartanka taala dhismaha hortiisa ayuu ku wareegay isagoo oo si aan dareen kicinayn u istaagaya. hooda ayaa degtay. Zahra ayaa raacday. najax oo soo siqaysa ayaa lagu yidhi joog naa waa maxay ayay weydiisay. hoodo horta doqonsanida ahuuno. najax ayaa tiri maxaad leedahay. Zahra ayaa hadalkii qaadatay oo tiri ma adigoo sidan u dhalaalaya ayaad aayar uun iska soo galay xafladda waa in la ogaadaa marka aad soo galayso. hooda ayaa tiri walaal inankow inanta kaxee baabuurkana ku wareeji ilaa inta aanu kula soo hadlayno cajaladii aan kuu dhiibnayna u shid oo magaalada ku wareeji adiguna xabiibtii yarkii kuusnaa oo jooga mooyaane soo geli maysid xafladda. markaad dib u fadhiiso ilayn muusig maynaan soo doonanay. najax oo amakaagsan ayaa albaabka lagu xidhay. qasrigii ayay dib uga noqotay iyada oo amarka qasab ku qaadanaysa. 30 daqiiqo ayay sii jeedeen markii uu telefoonku waduhu yeedhay. wadihii ayaa kala jeediyey haddana telefoonkeedii ayaa yeedhay. hoodo oo hoos u hadlaysa ayay ka heshay waa la yimidee kowdhe dee waa taqaanaa sida xafladda loo soo galee adiguna ha kufin. saacad badhkeed oo kale ayay haddana u soo socdeen dhankii madaxtooyada. lugta midig ayay iska soo horreysiisay iyada oo ciribta dheer ku kala kaxaynaysa jayga dhulka cabbaysan diraceeda oo aan wax badan qarinayn marka laga tego caleemo cagaar dahabi ah oo si farshaxamaysan oo gudban u qarinaya laabteeda dhexdeeda ilaa jilbaha inta u dhaxaysa mooyaane. labadeeda gamcood ayay xagga hore isugu keentay iyaga oo ku kulmaya shandada aadka u yar ee caatada ah. garbasaarka ku xidhan timaheeda inta kuusan ood ee dambe 4 kaabadood ayay midba mar kabta saartay. albaab jooggeeda 2 jeer kor uga dheer ayay dhismaha ka gashay. midiga ayay u leexatay markiiba iyada oo raacaysa ishaarooyinka ay bixinayaan shaqaalaha asnaamta aad moodo ee madowga ku labisan. tallaabada ayaa soo dhoweynaysa dhawaaqa ay dhankiisa u soo socoto. muusig qalaad oo la naaqusay ayaa ku barxaan codka ay dadku sida shinnada ugu guuxayaan. qosol talataali ah ayaa labadii ilbiriqsiba yeedhaya. koox ayaa loo taagan yahay qaarna u fadhiyaan meel ay ku hagaagto iyadoo aan garanayn ayay soo istaagtay afaafka hoolka ee ubaxyadu ku wareegsan yihiin. intii aanay waxba fahmin ayay maqashay dhawaaq ka soo yeeraya dhanka hore ee hoolka. waa hoodo iyo Zahra oo si farxad leh magaceeda ugu heesaya. waa qayb qorshaha ka mid ah. najax ayaa timid. najax magacii yeedhay ee u eekaa kii inanka madaxweynaha ayaa dadkii soo jeediyey. 200 oo indhood oo jidhkooda wata ayaa mar keli soo eegay dhankeeda. naxdin ayay boodyaha isla dhacday. guuxii ayaa mar keli joogsaday. waxay ogaatay in uu habeenkeedii yahay. alle waa baray sida fursadaha looga faa'iidaystay. 2 gamcood ee boorsada yar ku dhegan ayay tabidix kor u qaaday si ay sacabkeeda oo ballaadhan timaha u dul mariso iyada oo dhafoorka bidix ka bilaabaysa kuna joojinaysa dhegta iyo qadaadka inta u dhaxaysa. isla gacantii ayay dhaadhicisay iyada oo faryarta ku soo qabanaysa diraca qaybtiisa ku beegan jilibkeeda bidix korna u soo dalacaysa in aan badnayn. tallaabo alla baray sida loo qaado ayay ku hogaamisay jidhkeeda carbisan. dad hoos u leh qof tan yari maxay ahayd ayay kolba laba dhaaftaa ilaa ay ku dambeysay Zahra iyo hooda oo dhoola cadayn aan jirin ilaa gowsaha ku muujinaya sidii carabta ayaa kolba dhaban la isku dhiibay. 4 hablood oo ag taagnaa oo cambara dheer ka mid tahayna xisaabta ayay ku saxday. kuusow oo jidh ahaan la joogo 4 asxaabtiisa ah
oo laba dumar yihiin ayaa indhihiisa iyo qalbigiisuba xaggan u soo maqan yihiin. Inta uu isha ku xadayo iyada waxay ururinaysaa hambalyooyin ay dadkii maqlay shaqadeeda dusha uga tuurayaan. Shaqo fiican ayaad qabatay walaal, dumarka ayaad hormuud u tahay najaxay, geeska Afrika ayaad u horeysaa, iyo in u dhiganta oo aanay garanayn sababta ay u mutaysatay ayaa lagu rusheeyey. Intii taasi socotay ayay hooda isha kala hadashay Cambaradheer, iyaduna isaga ay si dahsoon ugu dhaqaaqday. Najax oo goorahaaba garan la si uu ugu yimaado ayaa soo dhaqaaqay isaga oo iska dhigaya qof aan waxba arkin. Cambaradheer ayaa hadalkii qaadatay oo tiri, najaxow walaal, maanta waxaan ku barayaa inantan aad isku magaca tihiin. Isaga waa najaxe. maasha Allah, ma najax ayaa lagu dhahdaa walaal? Waaba loo sheegay waase. Najax oo hoosta ka shanqaraysa gariir dadsi ayaa is adkaysay una celisay, walaal haa, barasho wanaagsan. Gacan ku nooc oo kariim ah lagu duugay ayay si dabacsan u soo fidisay. degdeg ayuu ga qaaday, way ogtahay in ayna urtaasi ka ba'ayn ilaa berri. Cambaradheer oo haatan aan waxba looga baahnayn ayaa damacday in xaaladda hoosteeda ku soo celiso. Inanta miyaad garanaysaa? waa inantii toddobaadkii hore ku guulaysatay shaqadii ay dhalinta Afrika oo dhami u tartamayeen. Isagoo aan indhaha iyada ka qaadin ayaa soo celiyey walle, oo shaqaduna dee waxay noqotay guddoomiyaha COA ee bariga Afrika. haddii uu dherigiisu bilaa milix ahaa, iminka ayay cusbo loogu daray. markii uu maqlay magaca COA ayuu indhaha kor u taagay, si toos ah ayuu iyada ugu yidhi, waaw marwada, hambalyo ayaan leeyahay. marka hore hooda iyo Zahra oo sidii ay rabeen wax ugu socdaan ayaa Cambaradheer cidhifka jiiday si ay ugu kaliyoobaan labadan isku magacayihi. meel ka durugsan ayay sharaab u doonteen, iyaga oo ka fogaaday goob ay ka maqli karaan hadalkooda. shaqada hooda iyo Zahra ayaa haatan ah in dadka ka ilaaliyaan si ay u kala bogtaan. saaxiibadood najax oo aanay uga baqayn in markabka loo soo xidhay ay alaabteeda kala degto ayaa isku kala bixisay kuusow. wixii u eekaa bariido iyo isbarasho ayaa u gudbay hadallo dhankiisa ka imanaya iyo dhoola caddayn ay inani siin karto nin ay rabto oo dhankeeda ka imanaya. walla uu la joogo ninkii ay jeclayd ee madaxweynuhu dhalay, haddana mar keli ah jooggeeda waxba kamay bedelin. kalsooni ayay dhabarka la dhiibanaysay, iyada oo eegmada ay indhihiisa u diraysay u qiyaasnayd. xaaladda ayay maamulkeeda la wareegtay, iyada oo aamusni qosol ay marka ay iyadu doonto u qadhiirayso, marka uu doonana ay ka qarinayso, iyo ereyo kooban ku hagaysa haasaawaha. bilaa awood ayay ka dhigtay, wax la sito ayay ka dhigtay, fig ayay kala baxday. dad waxa uu yidhaahdaaba nacam odhan jiray ayay ka mid noqon weyday, iyada oo aan isagana diidayn ayay haddana marka ay doonto ku adkaynaysay. markii u horreysay ayay dareensiisay in laga awood badnaan karo. Zahra ayaa u sheekaynaysa kooxda, hooda ayaa sheeda ka soo dhowraysa, iyada oo kolba candhuuf culus liqaysa. in badan ayay eegtaa, haddana way ka jeedsataa si aan looga shakiyin. markasta oo ay labadooda isa sii fahmaan, hooda laabta ayaa sii cuslaanaysa. walow ay si niyad ah isugu keentay, haddana farxadda ay saaxiibadeed u dareemayso wax kale ayaa weheliya. ishii aragtay in ay lambarada kala qorteen ayaa degdeg u qoyday, dhibic celin ahna soo tuurtay. qof ay rabtay ayay hibaysay caawa. قصارين المضو يا إيكا قصار.